جنتالون برنامجكن waa barnaamij aad iyo aad u qurux badan ayuu ahaa waan daawaynaa habeenkii khamiistii jimcuhu soo galayay aad baan u daawaynay SMS-yadeedina waan dirnay afartii dhalinyarta ahayd horta soo baxday ee finaalkiisa soo taagtay afartoo ma kala dhicin oo aad iyo aad bay cod fiicnaayeen laakiin haddana waxaan aad u hambaliyaynayaa labadii gabdhood ee reer Ookaar ahaayeen soo taagay finaalka waana hambaliyaynayaa dhammaantiin waxaan kaloo hambaliyaynayaa agaasimaha adeecada raadiyo Djibouti oo fikradda isagu keenay waa fikrad aad iyo aad u qurux badan bay ahayd caruurtii soo wada jiidatay kuwii Yurub joogay iyo kuwii Djibouti joogay aad u soo jiidatay waxaan u malaynayaa inay hadda bilaabmato saa ay u socon doonto sheekadu waaba sugnaaba habeenka khamiista sidaan riwaayadaha u sugi jirnay bariyi hore yaaban u sugnaaba dab aad u fanaanadii aad u fiican walba ku heesaya sida Aamina Sahar oo kale afkii afartii ku heesisay si fiican ugu heesisay waa fanaanin aad u fiican baan leeyahay kuweenii hore waa weynaaday aad buu kuwa bedeli doona waxaan u malaynayaa kuwa kale ka si fiican inay soo bixi doonaan insha Allah hadii Ilaahay ilaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقا waxaan ka hambalyeynaya wasaaradda warfaafinta ee Djibouti iyo gudidii ku hawlna in xulashada Jentaalon ay kala saarisay ayaan aad u hambalyeynaya marka dambana waxaad aad iyo u hambalyeynaya dhalinyartii soo baxday ee ku guuleysatay wixii badiyay iyo wixii laga badiyay wareer Djibouti aad baan u hambalyeynaya waxaan kula dardaarmaya in ay diintooda iyo dhaqankoodana ku adkaadaan amiska waanu la socnay aad iyo fiicnaa si qurux badan oo u dhacay aad baan u hambalyeynaya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad u hambalyeynayaa guddiga qabanqaabada gaar ahaan golaha faafinta iyo fogaan aragga ee jamhuuriyadda Djibouti dadaalkii dheeraa ay u soo galeen Jentaalentka labaad aad iyo aad baan ugu faraxnay waxaanan aad uga helnay xanaanka iyo nidaamka loo soo sameeyay barnaamijkaasi haddaan nahay qurba joogtii ama aan nahay anigoo Axaamud Diirane Katmaaris waxaan leenahay hambalyo dhalinyarta cusub ee soo baxday iyo kuwa aan soo bixin labaduba waa reer Djibouti waxaan jecelahay inay ku dhiiradaan dhaqankooda tacabkii iyo dadaalkii loo galayna ay ku fara adeegaan diintooda iyo dhaqankoodana ay ilaashadaan Djiboutina meel kastay joogaan waa inay u noqdaan danjire habeenkaas finaalka ee Jentaalent telefishinka jamhuuriyadda Djibouti ayaan toos ugala soconay kal horeba loo qabtay si qurux badan aad iyo aad baan uga mabsuudnay waxaan dareennay wax weyn waan ku hambalyeynaya wasaaradda warfaafinta maamulka idaacadda oo horseedka ka yahay Mudane Cabdulqaadir iyo dhammaan gudidii soo xuleysay ee fanaaniinteennii waaweyned ay ka mid ahaayeen iyo intii soo baxdayba aan u hambalyeynaya Aamina Sahra oo noqotay shakhsigii koowaad iyo wiilkii ka labaad baxay dhammaantoodba waxaan leenahay hambalyo waa idin salaamaynaa ku dhiirada dhaqankiina si gaar ah noo taabtay waa wax lagu farxo berigii hore dalkan intaan joognay inta aan telefishinkeenu hawada uu ku jirin waxaan ku wahayn madluun ajnabiga oo dhan waxay daawanayeen wadamadooda laakiin maanta energy fiican baan helay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaagii oo daawanayso dadkaagii oo arkayso codkaagii iyo dhaqankaagii iyo axaadiistii diiniga ahayd wax kasta oo warkii dalka oo si fiican ula socono aad iyo aad ban mabsuud uga nahay ajabgeliya hanaanka loo soo agaasimay sida wax loo waday waliba anigoon iloobayn foosiyo gabdhihii noo daadahinaya barnaamijka oo kala ah Faadimo Maxamuud Kaako Mahada Meedhane iyo Maryam Booha waxaan leeyahay hambalyo